kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halka aad nagala socotaan waa channelkeena xogaha wararka oo aynu ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waa talaado 3 bishan 9 September ee sanadkan 2025 waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe qodobada aan idin hayo oo warkeena aad ku maqlaysaan waxa ka mid ah soo jeedinta heshiiska xabashoojinta ee marinka Gaza ee Falastiin ee Trump iyo Netanyahu ay markaasi soo alifeen oo haatan hadal hayn badan ka abuuray wadamada caalamka ee siiba dunida islaamka sidoo kale waxaad maqlaysaan wadamadii Carbeed qaar ka mid ah wadamadii Carbeed iyo sidoo kale madaxda dunida islaamka oo soo bandhigay munaafiqnimadooda isla markaana si weyn u taageeray qorshaha Trump uu ku doonayo in marinka Gaza ee Falastiin markaasi lagu qabsado Yahuudana loogu gacan geliyo halkaasina laga barakiciyo shacabka Falastiiniinta ah haddii aad nagu cusub tahay ha hilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaalo caynkan oo aad u xiiso badan aad dalkan uga bogatid waxaan ku horeynayaa qodobada qaar ee soo jeedinta heshiiska xabashoojinta ee marinka Gaza ee Falastiin lagu soo bandhigay oo Trump miiska wada hadalka uu markaasi soo saaray waxaana ka mid ah dowladda PA-da ee Mahmoud Abbas uu markaasi hogaaminayo in ka hor inta aanan lagu wareejin oo aysan maamulin marinka Gaza ee Falastiin in ay qasab tahay in dib u habeyn markaasi lagu sameeyo dib u habeyntan oo Mareykanka iyo Israel ay doonayaan in ay ku sameeyaan dowladda PA-da ee Mahmoud Abbas uu markaasi haatan hogaaminayo waxaa ka mid ah in meesha laga saaro oo markaasi la bedelo manhajka waxbarasho ee haatan markaasi dugsiyada iyo xarumaha waxbarasho ee dhulka la haysta ee Falastiin isla markaana lagu saleeyo hadafka guud ee gumeystaha Yahuudda ay ka leeyihiin waxbarashada Falastiiniinta ku nool dhulka la haysta ee Falastiin waxaa sidoo kale qayb ka ah in dowladdan PA-da ee Mahmoud Abbas uu markaasi hogaaminayo in ay joojiso taageerada haatan ay la garab taagan tahay qoysaska shacabka Falastiiniinta ay ku shahiiday weerarada ay gumeystaha Yahuudda markaasi ku qaadeen iyo qoysaska shacabka tirada badan ee Falastiiniinta ah ee lagu hayo xabsiyada gumeystaha Israel waxaa sidoo kale shuruudahan qayb ka ah in dowladdan PA-da ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo isla markaana ay u shaaciso in ay aqoonsan tahay dowlad ay leeyihiin Yahuudda lagu degaameeyay dhulka la haysta ee Falastiin waxaa sidoo kale shuruudahan qayb ka ah in hubka laga dhigo dhammaan kooxaha hubeysan ee iska caabinta markaasi wado ee ku xoogan dhulka la haysta ee daanta galbeed iyo guud ahaan dhulka la haysta ee Falastiin waxaa sidoo kale qayb ka ah in dowladdan PA-da ee Mahmoud Abbas uu markaasi hogaaminayo in si rasmi ah ay ugu aqoonsatay Israel in caasimadooda ay tahay magaalada la haysta ee Qudus oo Masjidul Aqsa oo markaasi ku yaalo waxaa sidoo kale shuruudahan qayb ka ah in agaga B iyo C oo haatan dowladda PA-da ee Mahmoud Abbas uu markaasi hogaaminayo ay maamulayso in si rasmi ah loogu wareejiyo gumeystaha Israel waxaa sidoo kale shuruudahan qayb ka ah in agaga Yahuudda lagu degaameeyay ee guud ahaan dhulka la haysta ee daanta galbeed in dowladdan PA-da ee Mahmoud Abbas uu markaasi hogaaminayo ay aqoonsato isla markaana ay tixgeliso waa shuruudaha haatan ku xusan soo jeedinta Trump uu miiska wada hadalka markaasi soo saaray oo xalayto ilaa maanta isaga iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo kooxda mujrimiinta ah ee markaasi la safan ay xabadka u garaacanayaan isla markaana ay soo jeedinayaan in ay qasab tahay in Hamas iyo kooxaha iska caabinta Falastiiniinta ay markaasi aqbalaan tani ayaa sidoo kale ku soo aadaysa iyadoo aan soo jeedintan markaasi lagu xusin in ka badan 10,000 oo qof oo Falastiiniin ah oo lagu hayo xabsiyada gumeystaha Yahuudda kuwaasi oo haatan waxyeelo iyo dhibaatooyin loogu geysanaya xabsiyadaasi waxaa sidoo kale soo jeedintan aanan lagu xusin weerarada joogtada ah ee Israa'iiliinta xag jirka ah ay markaasi ku hayaan shacabka Falastiiniinta ay ku nool dhulka la haysta ee daanta galbeed iyo guud ahaan dhulka la haysta ee Falastiin waxaa sidoo kale aanan lagu xusin xadgudubyada joogtada ah iyo nijaasaynta gumeystaha Yahuudda ay ka wadaan dhulka barakeysan ee Falastiin gaar ahaan masaajidada qadiimiga ah ee ku yaala halkaasi oo ugu horeeya masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada la haysta ee Qudus oo si joogto ah gumeystaha Yahuudda weeraro ay ugu hayaan isla markaana ay ku xadgudbayaan waxaa sidoo kale soo jeedintan aanan markaasi lagu xusin in la asaaso
dowlad ay leeyihiin shacabka Falastiiniinta ah oo caasimadooda ay tahay magaalada la haysta ee Qudus ee dhulka la haysta ee Falastiin. Sidoo kale kooxda ee loo bixiyay magaca golaha amniga ama golaha nabadgelyada ama waxa loo yaqaan Peace Council oo la doonayo in ay maamulaan marinka Gaza ee Falastiin oo sida la sheegay ay qaybta ka yihiin wadamada Carabeed iyo dunida Islaamka. waxaa loo arkaa in ay yihiin koox dabadhilif u ah Israa'iil iyo Mareykanka isla markaana ka amar qaadanaya Washington iyo Tel Aviv. soo jeedintan laguma xusin in gumaystaha Yuhuudda ay si buuxda uga baxaan guud ahaan marinka Gaza ee Falastiin iyo in dagaalkan uu gebi ahaantiisba soo dhamaado. waxaase qalinka markaasi lagu duugay oo si faahfaahsan looga hadlay soo jeedintan in ay qasab tahay in Xamaas iyo kooxaha iska caabinta Falastiiniinta ee Gaza ka dagaalamayo in hubkooda ay soo wareejiyaan oo ay jilba dhigtaan, calanka cad ay dusha sare u taagaan, isla markaana ay go'aansadaan in iyaga iyo qoysaskooda ay ka baxaan guud ahaan marinka Gaza ee Falastiin. waxaa sidoo kale soo jeedintan ku xusan in dowladda PA-da ee Maxamuud Cabbaas uu markaasi hogaaminayo in aysan si kumeel gaar ah u sii maamuli doonin marinka Gaza ee Falastiin, waxaana suurtagal ah in kooxda uu hogaaminayay Yaasir Abu-Shabaab iyo kooxaha kale ee mujrimiinta ah ee munaafiqiinta ah ee markaasi Yuhuudda ay ka asaaseen marinka Gaza ee Falastiin in loo dhiibo talada iyo maamulka marinka Gaza ee Falastiin, iyagoona ka amar qaadanaya Israa'iil, Mareykanka iyo wadamada Carabeed ee maanta Yuhuudda markaasi u sacbinayo. waxaase sidoo kale hadalhayn badan abuuray Tony Blair oo aynu ka warqabno in xilligii ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa dalkaasi UK in ka badan 1 milyan oo qof oo Ciraaqiyiin ah in uu ku dilay wadankaasi Ciraaq. waa xilligii lagu duulayay Allah u naxariistay dowladdii uu hogaaminayay Saddam Hussein, waxaana ninkan uu ku eedeysan yahay, waxaana ninkan aynu ka warqabnaa in uu yahay nin gacmaha dhiig ku wata, waana nin haatan aqalka cad ee White House-ka iyo Tel Aviv ay doonayaan in ay ku wareejiyaan isla markaana uu maamulo marinka Gaza ee Falastiin. haddii sidoo kale sida ku xusan soo jeedintan 48 saacadood ee ugu horeysa ee heshiiskan Xamaas ay soo wareejiyaan dhammaan Israa'iiliinta ay ku hayaan marinka Gaza ee Falastiin, waa kuwa baktiyay iyo kuwa noolba, waxaan la ogeyn waxa ay sameyn doonaan gumaystaha Israa'iil iyo sida ay noqon doonto xaaladda shacabka Falastiiniinta ee ku nool marinka Gaza ee Falastiin. waxaana la aaminsan yahay in marka maxaabiistan ay gacanta ku dhigaan Israa'iil, xasuuqa, dilalka iyo dambiyada dagaal ay markaasi sii wadi doonaan oo bambooyinka kuwa ugu culus ay la dhici doonaan meel kasta oo ka mid ah marinka Gaza ee Falastiin, maadaama maxaabiistoodii ay la soo baxeen oo aanu jirin wax cabsi ah. waana sababta Trump iyo Netanyahu ay ugu heshiiyeen in 48 saacadood ee ugu horeysa ee heshiiskan qalinka lagu duugo in dhammaan Israa'iiliintan Israa'iil lagu soo wareejiyo. haddii Xamaas ay ka soo horjeestaan qodobadan, waxay u muuqataa in cadaadis xoog la markaasi la saari doono. waxaa suurtagal ah in markaasi laga mamnuuco wadankaasi Qatar oo si qasab ah looga saaro caasimada Dooxa ee dalkaasi, maadaama Trump uu codsi u gudbin doono dowladda boqortooyada ee dalkaasi Qatar ee uu hogaaminayay Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. waxaa suurtagal ah in madaxda Xamaas markaasi lagu beegsado caalamka oo markaasi la dilo. waxaa sidoo kale suurtagal ah in kiisas lagu furo hoggaanka sare ee Xamaas laguna eedeeyo in ay yihiin kuwa hortaagan in heshiis rasmi ah oo xabashoojin ah laga gaaro xasuuqa Gaza. waxaa sidoo kale suurtagal ah haddii Xamaas ay markaasi diidaan soo jeedintan Trump iyo Netanyahu markaasi dhankooda ka yimid in caasimada Gaza laga dhigay si la mid ah sida markaasi maanta laga dhigay Rafax iyo Baytulxanuun, iyo in la sii baabi'iyo shacabka Falastiiniinta ah ee ku nool marinka Gaza ee Falastiin. haddii Xamaas sidoo kale ay diidaan soo jeedintan, waxaa taasi Netanyahu ay u suurtagelin doontaa in caalamka Carabta iyo Mareykanka uu markaasi ku qanciyo in dagaalkan la sii wado oo la sii baabi'iyo shacabka Falastiiniinta ee ku nool marinka Gaza ee Falastiin. waa sida haatan markaasi la tuhmayo. Xamaas waxaa lagu eedeyn doonaa in ay sabab u yihiin burburka, barakicinta, gaajada iyo sidoo kale daadinta dhiigga shacabka ku nool marinka Gaza ee Falastiin. waa haddii ay iyagu markaasi qalinka ku duugi waayaan isla markaana ay ogolaan waayaan soo jeedintan Trump iyo Netanyahu ee aqalka cad ee White House-ka ay markaasi ku soo alifeen. ha yeeshee haatan kooxaha iska caabinta Falastiiniinta waxaa si cad ay markaasi u soo bandhigeen
in aysan aqbali doonin soo jeedintan ayna ka soo horjeedaan islamarkaana ay u arkaan mid markaasi lagu dulleynayo shacabka Falastiiniinta ee ku nool dhulka la haysta ee Falastiin. waxaase la yaab noqotay in madaxda qaar ee dunida islaamka ay isa soo bixiyaan islamarkaana ay taageeraan soo jeedintan. waynu aragnay madaxweynaha waddankaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan qoraalkii uu soo dhigay bartiisa X ee Twitterka isagoona ammaan kala duldhacay Donald Trump, waxaana uu isagu markaasi sheegay in la joogo xilligii Xamaas iyo kooxaha iska caabinta Gaza ay aqbali lahaayeen soo jeedintan isagoo aanan ka fikirin cawaaqib xumada markaasi ka dhalan karta iyo qodobada halista leh ee ku xusan soo jeedintan oo Trump iyo Netanyahu ay markaasi ka dambeeyaan. waxaa sidoo kale aynu aragnay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Shahbaz Sharif oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa X ee Twitterka isagoona ammaan kala duldhacay Trump islamarkaana ka dalbaday Xamaas in soo jeedintan heshiiska xabajoojinta ee Gaza ay si degdeg ah markaasi ku aqbalaan. sidaasi oo kale Sacuudiga, Masar, Imaaraadka Carabta, Bahrain, Morocco waa wadamada qaar ee markaasi sida weyn u amaanay Trump islamarkaana si cad ugu sheegay aqalka cad ee White House-ka in ay kaga dambeeyaan dadaal kasta oo lagu doonayo in heshiis xabajoojin ah looga gaaro xasuuqa Gaza iyo in ay taageersan yihiin 21 qodob ee Netanyahu iyo Trump ay markaasi ku heshiiyeen ee la doonayo in lagu baabi'iyo shacabka marinka Gaza ee Falastiin, hubkana looga dhigo geesiyaasha Falastiiniinta ah ee Yuhuudda maanta markaasi la dagaalamayo, meeshana looga saaro dadaalada la wado ee lagu doonayo in shacabka Falastiiniinta ay ku helaan waddan ay iyagu leeyihiin iyo in ay ku xoroobaan gumaysiga iyo dhibaatooyinka maanta ay kala kulmayaan Israa'iiliinta lagu degaameeyay dhulka la haysta ee Falastiin.